soo dhawaada saaxiibayaal mar kale kusoo noqod wanaagsan halkan waxaa kasii doona taxanaheena noo sii socday ayna qaybtooni kood ku dhamaatay markay sixirowlooda carootay waxayna tiri maxaad ii ilaalinaysaa sidii kaamiraad miyaadan shaqadaada qaban karin aniga waxaan samayn doonaa wuxuu qalbigayga rabo intaa kadib way baxdii aad buu murgooday wuxuuna fuulaya saqafka dhismaha wuxuuna rabaa inuu dilo isigoo istuuraya sababta lugtiisii way dhaawactay mar dambe uusan fulin karayid aabihiisii oo uu rabo inuu noqdo ciyaaryahan wanaagsan dhan kale muu caawin kara saaxiibkiisii ka hor intuusan istoorin saaxiibkiisii asagoo wuxuuna ku yidhi nolosha mis dhiibi doon waxaan la dagaalami doonaa markaas lii aad buu furu wuxuuna yidhi saaxiibkiigiyo go-aan wanaagsan baa gaartay qofna waa inuu si degdeg ugu quusan noloshiisa waa inuu si joogto u dagaalamo dhibaatooyinkiisa sidaa darteed lii wuxuu geysna wuxuuna isku tanaasulay fikirka inuu isdilo saaxiibkiisi xidhoolooda ayaa yimid toolkiisii goobata u shiishay sixirka wuxuu gebi ahaan bedel qurxintii muuqaalka hoteelka hadda hoteelka aad buu qurux badan wuxuu noqon mid casri ah markaas jin ayaad markii aragto hoteelkii cusub aad bay ula yaabtay waxayna aad ugu fura waxayna weydiisay saaxiibkiisii xidhooleyda markii ugu horeysa baan kugu arkay halkan yaa tahay adigu wuxuu ugu jawaab anigu waxaana saaxiibkasi xidhooleyda sidoo kale waxaan hoos jeeday markaasi xidhooleyda yaa timid saaxiibkiisi xidhooleyda wuxuu jin ugu deeqa dhir yuro aad qurux badan xitaa wuxuuna siinaya miiska sixirka jin waxay mid in si xidhooleyda ku duushay miiskaasi hadda jin waxay bilaabaysaa inay la shaqayso xidhooleyda hoteelka waxayna weydiisay maxaa hoteelka habeenkii keli u furtaa ma jiro qof imaanaya sixiroleyda waxay tiri maya sidaa maanas diyaari qof baa imaanaya dibnili ayaa maraya gaarka hoteelka maalintaas waxba ma cuni sidaa darteed wuxuu galay hoteelka jini labadii kale waa ayaba markay arkeen maxay hore isku arkay saldhigga booliska markaas sixiroleyda markay aratay jini isla markiiba gacanta liibay qabatay waxayna dibaddu saartay waxayna ku tiri tago hoteelka ka cunto halkan waa hotel sixiroley ay leedahay waxayna ku siin doontaa cunto sixir ah waxayna ku filin doontaa hal rabitaan laakiin maan bilaash waxaa bixin doontaa waxay rabto lii aad buu liya wuuna farax wuxuuna ku yidhi haddaba waa inaan cuno cuntooyinkeeda markaasii hoteelka dib ugu laabtay sixiroleydigu waxay tiri markaad dalbato cunto ma diri karta go-aankaaga qiimaad ku bixinaysa aniga ku aamin doonaa lii wuxuu yidhi waan ogol laakiin u sheeg rabitaankayga jin markaas sixiroleydi waxay bilaabaysa diyaarinta cuntada waxayna ku tiri jin sooqo calaamada kiikii daawooyinka hoos ku jira jin waxay goysay calaamo silin fal midabkooga cagaar cas buu isu bedelay waxayna bilowday inay hadlaan taasi aad bay u baqaltay cartiyada sixiroleydi wacaysa sixiroleydi waxay tiri waxayna ku tiri hala yaabin waan oga inay hadlaan jin waxay tiri tani waa kee sidee bay u hadlaysaa laakiin waxay iska dhaafta waxayna u tagtay dhulka hoose waxayna halkaas ka qaaday daawooyin midba kala duwan leh oo dhulooyin ku jira waxayna u keentay sixiroleydi markii sixiroleydi isku dartay daawooyinka waxaa soo galay xoog sixir u muuqda qiiq kadibna sixiroleydi waxay u karisay cunto lii aad buu u jecla cuntada lii wuxuuna bilaabay cunista markuu baxay sixiroleydi waxay siisay kaarkeeda markuu bax jin waxay weydiinaysa sixiroleydi muxuu lii dalbaday laakiin sixiroleydi wax jawaaba ma siinin maalintii xatiijin riyo cabsile bay kusoo toostay waxayna kuriyota kaba raxdin loola seexanaysaa maalintii dab markay hoteelkii timid aad bay u layaabtay sixiroleydi waxay lii ka dhigtay shaqaalaha hoteelka abiil lii wuxuu ibsay guri cusub u dhih hoteelka wiilkii shaqan guri leh loo oran jiray b waxaana loo tusay isigoo wareeg shaqo galaya farxadii ku gal weerarsigaasi laakiin silinfla calooshiisii ayaa bilaabatay inay xanuunto waxaa yar muddo dheer wax buu soo cunin dadkii wareysiga qaada waxay arkeen qof tabardan waxayna ka saareen habeenkii markii balse u seexday wadada dhinaceeda hooyadiisa ayaa soo waxay ku tiri aad baan u xanuunsanahay waxaan una baahan lacagan ku yuuso daawooyinkeyga markaas wuxuu qaatay midi wuxuuna tagay hoteelka sixiroleyda wuxuuna mididii ku qaat gacantiisii wuxuuna bilaabay inuu juuxan jabo wuxuuna weydiisay lacag iyo cunto wuxuu kasoo saar bac jiibkiisii wuxuuna u tuuray jin si dadasi ugu buuxiso cunto sixiroleydi weyti markuu arkay wuxuu mididii qoorta jin ka saaray wuxuuna sidoo kale sixiroleydi ka dalba lacag iyo cunto silim filan wuxuu ku dhac dheertii yareed markuu arkeydkii oo hadala maskaxdiisii baa qaraxday wuxuuna jin sii daya wuxuuna ka caray isigoo baqay wuxuuna ku dhacay isigoo miyir beelay markuu miyir kusoo noqdo wuxuuna raginka bixina wuxuu sameeyey wuxuu yiri hooyadeedii xanuunsanta waxayna u baahanta lacag iyo daawo ka iibsato aniga waxba maanu cunin muddo badan sidaa darteed ayaa sidaan u sameeyey jin waxay weydiisay maxaa shaqa waraagsan weysay wuxuu yidhi nasiib xun baa dishay waxaan isku dayay dhowr jeer laakiin xitaa shaqa maan helin hooyadeedii waxay dan soo qaad inay wax barto laakiin waxbarashadeedii wax faa'iido maysan lahayn lii farxadii ku yiri waa wala hadda waxaa timid meel aad u fiican ani waa sixiroleyda rabitaanka dad ku filisa markaas sixiroleydi waxay ku tiri ii sheeg rabitaankaaga wuxuu yiri waxaan keli rabaa inaan helo shaqo yar jin waxay ku tiri midyaraba oo tahay maxaa yar waxaa bixin doontaa qiimo aad u culus biyo wuxuu yiri laakiin wax ma haystaan bixiyo sixiroleydi waxay ku tiri haylaan faraxaaga aad bay qurux badan yihiin jin sixiroleydi waxay kala jikasay biyo cunto u kariso waxyar kadib waxay siisay digaag madow markuu warkafkiisii u biyoobay wuu siclin waay wuxuuna bilaabay cunistiisa wuxuu sayd cunay sidii qof aan cun muddo wax
sanad ah. Kadibna cunastii bii aad buu fur wuxuuna ku yiri wow sixirowleed cuntadaada aad bay ula yaab badan tahay. Markuu baxay Lee wuxuu yiri Britol waxaa rumowi doona rabitaankaaga bii isigoo faraxsanayo socodooyinka. Laakiin markuu arkay dhibaateynaya gabar markuu isku day inuu joojiyo ninkii wuxuu ku hanjay mindi wuxuuna ku yiri ka taga halkaa. Laakiin bii matag wuxuuna ku yiri gabadha iska sii daa. Ninkii aad buu cur wuxuuna bii ku weer mindidii ku sii socotay. Laakiin bii aad buu xoog badan wuxuuna qabtay mindidii. Kadib booliska baa markii ninku isku day inuu baxsado wuxuuna xoog ku bixi mididiisii taasoo sababtay in la furo bii ay go'aan. Wuxuuna bilaabay inuu la xanuunsado wuxuuna xasuustaa halkiisa sixirowleedaha farahaaga aad buu qurux badan yihiin. taasi waxay ka dhigan tahay farahaasi waxay ahaayeen qiimaha rabitaankiisii. qiiq madow ayaa qaad fariiga waxayna keeneen weelka sixirka horteeda. maalintii xigta Lee wuxuu u joogay iskuulkiisii. kooxdii wiilashii xuma waxayna bilaabeen dhibaateyn wiil kale. Lee wuxuuna ku yiri ka taga qofka la dhibaateyn laakiin idinka khasaari doona. waxaan u sheegay abiin oo maamula iskuulka. Lee wuxuu ruux fasalkiiba u dhaqaaqay. markii Jiin la kulfiidkii wuxuuna tusiyaa muuqaal ku jiro biya. muuqaalku wuxuu sheegay in bisi geesnimo badbaadiyay gabar. markay arkeen geesnimadiisii booliska waxay go'aansanaysiiyeen abaalmarin weyn. maalintii xigta Jiin riyo kale cabsi labay kusoo toostay. waxay artay fariig biyo oo go'ay aad bay u baqday waxayna ka baxday gurigeeda iyadoo cabsanaysa. Jiin waxay ku noqotay carruurnimadeedii way dhacday markaas haweeney baa gacan ka qabatay. waxay artay gabar cabsi oo la socota iyadoo cabsi darteeda ay toostay. maalmo kadib saaxiibkii Lee wuxuu ku soo laabtay iskuulka. Lee aad buu u soo dhaway saaxiibkiisii. laakiin kooxdii wiilasha xuma waxayna bilaabeen inay marka dhibaateeyaan. markaas saaxiibkiisii Lee wuxuu ku yiri ila kaftam haddii aragtaan laakiin aniga mar dambe igama baqayo. markaas wiil baa carruur wuxuuna qabtay bulootiga oo istaajiyey. Lee wuxuu soo fargeliyay wuxuuna ku yiri maxaa samaynaysaa ma waalan tahay. macalinkii baa yimid markaas waxay fadhiisteen kursigooda. dhan kale hooyadii Jiin waxay kasoo noqotay ninkeedii. Jiin waxay hooyadeedii ku tiri maalmihii ugu dambe waxaan ku riyoonan riyooyin la yaab leh. waxaan arkay carruurnimadeedii marka aan jir 5 sano. maxaa igu dhacweynay ma igu timid. hooyadeedii waxay isku day inay kala xigto waxayna ku tiri may gabadheedii waxba kuma dhici riyadaada iskiilow. maalintii dambe Lee iyo Jiin markay shaqada kasoo laabanayeen Lee wuxuu dejiyey maalinta fasax ah meeraacaysa inay casho wada qaadano. waxayna ogolaatay maalintii dambe markay timid hoteelka waxayna aragto cunto harta waxayna iska celin weysa inay cunto inkastoo sixirowleedii ku dugtay inay sin cuntooyinka hara. markay cunto caafimaadkeedii u isbedelay. maalintii dambe waxay u baxday shopping iyadoo la socod saaxiibteeda. halkaasi ku ortay qoraacaana dadka intooda badan jecel yihiin. markay Jiin ay damacay inay tagto qoraagiyaa kula kulmay naftiga dhexdiisii. markii Jiin dhicis qoraagiya gacanta ka qabtay u badbaadiyo. laakiin markay gacanta ka qabatay Jiin waxay bilaabay in wax badan ka fikirto. markii albaabka liftiga uu furmay qoraagiya ugu baxay. maalintii dambe Jiin waxay daaweynaysa TV halkaasoo qoraagiya lagu wareysanayay. Jiin waxay xasuustay in lambarkeeda uu qaatay iyo qalin uga dhacay liftiga. kadib qoraagiya soo wac Jiin wuxuuna ku yiri Jiin anaga ayaa qoraagiya kula kulmay naftiga dhexdiisii. waxay ku tiri haan waan ku xasuusta wax fiican ay soo waxdo qalinka liftiga kaga tagtay ayaa la jira. qoraagiya wuxuu ku yiri oo ilaahiyo wuxuu mid ugu qaalim kula kulmay maanta si aad ugu soo celiso. waxay tiri haa waxay kadib ay la kulantay waxayna culis qalinkiisii. waxayna sheeko dheer wada yeesheen. fiidkii Jiin gurigeedii baa adeeda ka balan qaad inay markale kulmi doonaan. qoraagiya wuxuu aaday hoteelka Lee. sixirowleedii saaxiibkeedii ay joogeen. waxay Lee weydiisay maanta waa fasaxaagii maxaa u timid. wuxuuna weydiiyey may timid. waxaan ballanay in film fiirsano casheeno. laakiin saaxiibkii sixirowleeda ayaa la baxay Jiin wuxuuna ku yiri wiil ku kalsoona dadka inta badan. haddii aad ku kalsoonaato qof uu kugu xadgudbo waxaa yeelan doontaa qalbi jaab. maalintii dambe haweeney duq ayaa lagu arkay in wiilkeedii 40 jirkay kacaynaysa lama filaan ah. wiilkaas caqligiisii wuu yar leeytay. hooyadiisina aad bay ursan maxaa yeelay wiilkeedii cid lama daryeesho. wiilkaas wuxuu mid caajis badi qof xun laakiin aad u daahir ahaa. Jiin markay toosto waxay bilaabaysaa inay qoraal ka fikirto. waxayna farxday waxayna dareemaysaa inay bilowdo inay jeclaato. Lee wuxuu u sheegay aabihiisii waxaan rabaa inaan ka tadwiisiiso aan jaamacadda aado. aabihiisii si dib u galaaday. maalintii dambe wuxuu usuurkiisa u kasoo isdiiwaangelistiisii. wuxuuna u sheegay saaxiibkiisii saaxay naftaada ilaali. kadib wuxuu u dhaqaaqay isigoo u sheegay kooxdii wiilashu xumaa. wuxuu u sheegay aad baa inku xumahay dadka aad baa u dhibaataysan. waxaan u malaynaya waanata u baahantii inaad tagtaan dhakhtar wanaagsan. kadibna uu tago wuxuuna aaday hoteelka. halkaasii ku dhammaatay qaybtii ninka way taxanaheynii. haddii halkaan nala soo gaartay aad iyo aad baa u maasan tahay. waxaan isku dayi doonaa inaan soo khulaaseyno qaybteeni 3aad. adigana waxaan kaa codsanaya muuqaalka lana garjina kan subscribe ku ahayn kan baleekana furo si ay kuu soo gaarto qaybteeni 3aad. aad iyo aad baa u maasan tahay daawade.